وهيسا يا لي شيء مرضاي عبسي واي والله عبسي ما إلهي عبسي ما تاس دي laga wada maaha ilaahay allahaas anaga dadkii noo sharxay saqalada noo sharxay ilaahay markii hadda lagu soo dhacdo hadda dawad qofka ruuxa muslim u tahay wallahi cabsana cadaaban ka cabsana war ilaahay muadib lamiya alla dhakan oo meel ku dhakan oo hadda caawa gaftid madaxa kugu dhufanay saasa noo tusay marka waa cabsanaynaaba saaka salaad baxday iga tagto waxaslay gormay kugu soo buurtan kugu soo dumaysa ilaahay saas ma aha jalla jalaalu naag baa jirtay jirkeeday gadi jirtay shaqadeedu waa saas hadduu ilaahay u dhakay naagtaas ma ilaahay wuxuu ku qabto wayni lahaa habeen imaan shaqo kale ma haysan ilaahay wuxuu yiri wax ma sameeyso wax khayra haabaliin maalin bay ABCC ilaahay wuxuu yiri jannada geliye u dambi dhaaf ilaahay marka waa rabbi noo raadinayo meelan ka baxno ma aha rabbi noo raadinayo meel uu nagu qabto bal waxaad noo sheegtaa dad badan oo Soomaaliyeed oo muslimiin ah isaga khaldan iimaanka iyo islaamnimada runtii xaqiiqatan waa arin muhiim ah islaamku waa diinta ilaahay jalla jalaaluhu وانا دينتي أنبياء الله صدر إن الدين عند الله الإسلام إسلام كاس شريعة نبي آدم عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ضدكو إلهي أنبياء وصدر وحي أهاي المسلمين إسلامكم مركا وحوى الاستسلام لله إلهي إنو قفكو ويسؤليبو مركا إسلام كاس ودين الأنبياء oo ambiyadu dhan ay dadka ugu yeereen oo ay kulligood muslimiin ahaayeen oo nabi ibraahim ilaahay warsaday ij'alni rabbana waj'alna muslimayn laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka islaamku waa kaas guud ee ah ilaahay in loo hogaansamo marka diintaas islaamka ayaa waxay u kala baxdaa waxa soo galaya al-iimaan oo ah qaybta ugu weyn ee islaamka uu leeyahay oo ambiyadu dhan iyaguna ay u yeereen oo isku si ayna ugu wada waceen oo ah in ilaahay la rumeeyo غيرkiisana aanan ma aragtay lagu gaaloobo ilaahay غيرkiisa inuusan waxba haysan waxna fulin karin waxna qaban karin waxna sameyn karin waxna uusan ahayn marka al-iimaan waa ambiyadu waxay dadku ugu yeereen waana talrabo maanta inay dadku yimaadaan islaamku marka waa madalada kore iimaankuna waa matluubka ilaahay uu naga rabo anaga waxa soo raacay marka iimaanka acmaal saalixa marka qofku marka uu ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah uu ku soo galay xayndaabka islaamka waxa laga rabaa inuu ka intiqaalo marxaladaas uu ka wareego oo u wareego marxalatul iimaan hadduu waligiis muslim joogo oo uu bas diintii baan soo galay aniga xayndaabkan ku jira waxa laga yaabaa inuu ilaahay bari badbaadiyo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala huwa ghafuurur rahiim يوم القيامة حساب أيا تعلق ميزان أيا لساريا وحاس ويريو إسلام بان أهي ولا قال حساب تمايا لكن بدبادة دي الدنيا هي فوائد دي إلهي ودين تكوشيغي إسلام ككمهليو درجة الإسلام كما وضع إسلام كجود أهان كما وضع درجة الإسلام أو سوق لدي إسلام كمهليو فوائد دي قفا أركيسا مسلم صدن سنة لكن حالة دي الدنيا وتعبان واجريه خساره كجرا وحو رب ما هليو إلهنا وعابده إليه وين إلهك قاوي مرك إله عابده يسودون واحد ربطه كسينين إذن أديك ميل قلادة سارن إلهي وحو كاد البدي أيالا سبعين إذن إسلامكو معها مواعيد إلهي بل معها إلهي أقاد إسلام لغو مهلو وحلوها الإيمان سيدا درتيد لمن أعراب أيا سوغا لدين إسلامك ورباديئة نبي يقول إيمان وحير يا رسول الله إسلام كان شيء سوى سوقلني وحن هلنا ملا ما حد أحيد هين مرك إله أسو جواب مرك وحيد قالت الأعراب لمن كي باديها سوق ربادي وحير هذين آمنا وارميني
قالت الأعراب آمنا إلهي وحكير قل لم تؤمنوا إيمانكم معها إن ترى مسلم أنا هيمان ولكن قولوا أسلمنا وحاسوقش إسلامك ولما يدخل الإيمان في قلوبكم مركو إيمانك قلبه نسوق إيمانك وقلبه مركاسا إذن سينا يا وحن إذن بلنقاضي مركا ما أنت بلنقاضي إلهي أقاضي dadka maanta mushkil badan ay haysato iluu ka sheeganaya intaasoo sano cudur ka sheeganaya intaasoo sano culimadana qaar culimada kamidana waxay u sheegeen asaas mi aha mu'minku mubtala way ninka mu'minka waa la ibtilayaa mu'minka lama ibtilayo ibtilaha ma aha macnaha sa u fahamteen maaha ibtilaha la sheegayo ilaahay adduunyada kuma keen inuu rifaad leed ku noolaato kuma keen huwa yafcal ma yashaa balamuu qaaday وأنا ربي كريم أو عظيم أو عزيزة وحير من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي حياة طيبة ننكي إيمان يا عمل صالح لي ماذا وحان نوليننا نولل وناكسن ويسوق دريميا ننكي كل هذا دلوقتي سنة هي بلايا هي ستو كان أنكو جرا عذر أنكو جرا أمور هي وهالليسين نولل في عنكم مجرو sababtoo awali muuna iimaan iyo acmaal saalix lama iman ilaahay muusan rumayn dhab ilaan ilaah been ma sheegaayo ballanta uu ilaahay qaaday maalinka uu qofku iimaan helo noloshiisu isbedelaysa mu'minka lamaba dhibaba almu'min wuxuu ku nool yahay nolol raaxa leh oo kaamil ah wuxuu rabana ilaah waa siiyaa bal marmarka qaarkood inuu waxaa laga yaabaa isagoon warsan ilaahay wixii qalbigiisa ku dhacay inuu siiyo mu'minka waana tahay adduunyadan wuxuu ku noolaanayaa xayaa min axsani alxayaa aakhirana iskaba dhaafba jannaat alculya ayuu galayaa laakiin waa inuu mu'min yahay garanaysa ibtilaaha lagu sheegaya marka muxuu yahay marka ibtiluhu waa ikhtibaar waa la is-ikhtibaar adduunyada dhanba ikhtibaar ah ikhtibaarkaas marka ma aha kulligiis dhib ma aha امتحانكو إلهي وحكوكو امتحاميا وناك وحونا كوكو امتحاميا خير شر لبضا بو امتحان وحوير إلهي سبحانه وتعالى ونبلوكم وحان إذا كنت امتحامنا بالخير والشر فتنة خير كي شر لبضا بو أنكو اختبارنا هو هأوما لين توانكي سنود نورش في عنكون ولين إن هذا اختبار كجرين اختبار كجرت إلهي كسوغاي ما هذا إما هاد علنسا بس حال هذا حوق جيغا وحان كو هلي طول كيغا وحان كو هلي qabiilkayga waxaan ku helay aqligayga waxaan ku helay 10 sano kadib markaad ilaahay soo fiirin weysi ayuu ilaahay hadana baab kale ku saaray baabka lagu saaray ma aha marka in lagu dhibo ma aha wuxuu ku leeyahay ma soo noqonaysaa oo ma ii soo laabanaysaa oo malada ilaahay waa ka xumahay ilaahu intii horena waa kaaga mahad celinayaa haddana dambigaygu waxaan ku noqday ilaahu iga qaad ilaahay ma u soo noqonaysaa ilaahay wuxuu wala nadiiqannahum waxaan dhadhansiinaynaa من العذاب الأدنى عذابك دون العذاب الأكبر كوين انت الجارين هرت أدوينا وحي روديبا كنت سينا سيانو أوغانو ما صنو قناي لعلهم يرجعون إلهي كوما ديبا إنو ما انتو دون كو ديبا ما وحو سينا وحوغا يرو ديبا حتى أد إلهي أسول لابتين إنا أسول لابتين مركة محيطها مركة أنا مركة وحانا قدمي iimaanka waa waxa ugu sahlan sida hawada ay u sahlan tahay oo ilaahay uga dhigay wax walba ilaahay agtiisa wax walba markay qaali noqdaan ilaahay raqiis ka dhigaa dahabka maanta qaali ma qof walba uma baahna dahab walaajid hada qofkii wuxuu u baahan yahay shaqo badan lacag badan inuu helo suu dahab u qaato laakiin inuu ama biyo cabo ama hawo qaato lacag kaaga ma baahan oksijiinka free waa ilaahay bixi تانو غالي عند الله نولشها كحرا ساسو إلهي غالي وغدقي ساسو إلهي وغدقي وح رخيصة إيمانك إيو إناد هذرنون هشيد ووح أغو سهلا علماء نوغدقتي وح أضك علماء قار أي وح نوغدقي إلهي إن لقى عبصدو أم إلهي عبسديسة وحويد أو أضك أو أباهن إناد عذاب جليسدو دينتو إيتهم بشقو نول بحكوليه حتى قار ما أركتي مؤمنك وحكولين الأنبياء قفل بقفك كإيمان بدنيه أيو كاختبار بدنيه قفك مرك إيمانك إنه كر أدقاق وعبسنا وحسنا امتحان بدنا يقول صار دعاية
marka waa iscelina wuxuu meeshadan meelahayga aan joogo ani imtixaan weyn kama bixi karo saas maaha qalad waay macnaheeda xadiidku waa saxiix ashaddu nnaasi ibtilaa'an alanbiyaa falanbiyaa falaslahu falaslax waay ibtilaahaas marka waxaa waaye nicmo waaye waa khayr baa lagu siinayaa imtixaanka shar keliya maaha bal ambiyada qaar waxaa ka mid ah ilaahay uu siiyey mulki aanan qof kale adduunyada la siinin ambiya haween alibtilaa ibtilihiis waa kan waay wax alla wuxuu rabo sekan ugu imaanaya qisada marka loo sheegayo ma aha qisada looguma sheegayo inaan tasliye iyo inaan iska qisooyin iska ilaahay anagu nala hadlaya ambiyadu mu'miniin ay ahaayeen adiga maanta haddaan iimaanka la timaadid ballamahaas ilaahay uu qaaday waxa aad rabtid in markiiba lagu siiyo ilaah waa ku siinaya rabbi hablii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi inaka anta alwahaab ilaahu waxaan kaa codsanayaa inaad isiisid boqortooyo aanan u suubanin qof kale oo aniga ahayn inaad isiisid ilaah waa ilaah ma dhihin war adoo nebi ay weydiisanaysa adduunye miya ma dhihin ilaah wuxuu yidhi fasakharnaa lahu riix waxaan u sahalnay dabaysha u shaqaynaysa tajri biamrihi ruqaan haytu asaab idan marka ibtilaha qaladan ka fahamsannahay iimaankaaga waa inuu kor u kacaa iimaankaaga ilaahay aad rumaysan tahay waa inuu qawi ahaadaa strong waa inuu ahaadaa khayr oo dhan baa kuu imanaya shar oo dhanna waa lagaa difaacayaa dhib ma gelaysid ilaa ilaah markiiba kaa saaro biliimaan waa maxay marka iimaanku waa inaad allah rumaysan tahay si dhab ah khayrkiisana aadan rumaysnayn khayrkiisa waa maxay caqligaaga taladaada tolkaaga dadkaaga jeebkaaga waxaasoo dhan wax walba oo aad haysatid waa ina ilaah u nisbaysaa isagaa isii dhib hadduu kuu yimaadana naftaaduu kaaga yimid xagga ilaahana qadaray isaga inaa u laabataa tira ilahu iga qaad ilahu kaa qaadaya mubaasharatan ilaahay subxaana wa tacaala sharaxiina laga siiyey ilaahay ayaa wuxuu ahaa muddo dheer sharaxyo badan kutubta iimaanka laga waramay iimaanku ma aha kitaab lagama qaato iimaanku waa meydaan waay waa camal waay 24 saaca shaqada ku jirtid iimaana hortaada joogo ilaah ma rumaysid ma rumaystid waa lagu ikhtibaaraya hada ilaah rumaysid oo ma aragtay ilaahay muslim rasmi aad noqotid noloshaada waxa way isbedelaysaa rumaynta ilaahay waxa wax walba waa inaad ilaah u nisbaysaa غيرullaahina aad waxba aadan siinin laa ilaaha ilaah ma jiro way ka horeysaa ila allah غيرullah hada aaminsan tahay hada maanta yani wuxuu leeyahay qofka shaqo aadaya wuxuu leeyahay shaqada hadaan shaqaysan sheen u shaqaynaya shaqada waana la amray inaad shaqaysatid laakiin shaqada hadaad maxay kala duwan qofka shaqada rumaysan qofka shaqada rumaysnayn maalinka shaqada laga qaado walwalaya wuxuu aaminsanaa shaqadan inay wax siiso idan iimaankiisu waa bil wadiifada iyo shaqadu aaminsan yahay dukaankiisu aaminsan yahay dukaanka hadda maanta uu ka xirmo waa walwalaaca ma seexanaa shaqada xageen ilmaha xageen waxa doonaayo leey maxaa way iimaankiisu wuxuu ahaa dukaanka iimaankiisu wuxuu ahaa shaqada ninka mu'minka laakiin shaqadu aadaya wuxuu leeyahay shaqadan asbaabtu ilaahay amray waay laakiin ilaah waxay siinay ilaahay jalla jalaaluhu shaqadu wax ka siinaya hadii caaw laga qaadana alxamdulillah ilaahay waa joogaa shaqo kale oo ka fiican ilaahay siinaya الإيمان مركا ما هو وح أو علماء كتبت الوقت أخي أو إيمان كساس اللي هذا ربوبية ألوهية ومركا لشرح يشروح كلا هو سي ولك إيمان هو ميدان ويوميا القرآن كون التفصيل أيوك بحي هبين القرآن كتضبات تنبقل كيبا وحكوا الرمي الإيمان بالله إله إلا الرمي تسوين كحو إله أنه كينيا إن إله إلا الرمي od ilaahay maalin 4 saacaad ilaahay hortaada u yaal marka laamiga socotidana fiirisid geedahan socdo ee dhulka soo baxay ee mataqaana timir soo bixinay yaa geedaha meesha ka soo saaray yaa kalarkan cagaarka ciid markii la furiyo cagaar kuma jiro waa inaad ku fikirtaa allah huwa alladhi fa'al subax marka soo toostid waa inaad taa ilaah baa maad iskale saaka qorraxda habeenkii maalinka isbedelayo ilaah baa keenay waxa soo dhan ayaa iimaan la yiraahdaa inaad ka fikirtid markaas aad mu'min noqonaysaa marka anaga ilaahay marka aan rumaysanahay
والله وين أو رحمة بدن أو جعيل كالجعيل بدن أو غفور رحيم الله هاس أنا جا dadkii noo sharxay shaqada noo sharxay ilaahay markii hadda lagu soo dhaco hadda dad qofka ruuxa muslim u tahay wallahi waa cabsana cadaaban ka cabsana war ilaahay mu'adib lamiya ilaahay hab ma jecel ilaahay jacayl in loo ilaahay abudu raba ilaahay mar raba ina cabsi oo yani oo xuux ah in ilaahay loo abudu mar raba ilaahay waa xabiib jalla jalaaluhu wadud sifadiisu waxa kamida sifatul wud ayaa kamida marka عرضي لك إله أننا نلوسي أيوحو أها الله دكان أو مالكو دكان أو هدا عاو قفتد ما ضحكو قولو فاني ساسا نلوتسي مركو عبساني نابا ساكا سواد بحدا يقتكتو وحسلي قربيكو بورتان كوكسو دميسا إلهي ساس معها جل جلاله إلهي مجرو قف شقاكو ديبايو أو كو دهايو shaqada intaad joogtid wax walba anaa ku haya anaa wax walba ku siiya anaa ku noloshaada oo dhan kafaalo qaaday hadaad shaqada markaad ku gaftidna aniga ii soo laabo anaa waa ku dambi dhaafaya shaqala siinayo leeyahay hadana waalidiinta dambi dhaafaya ninkii shaqalaha markuu shaqo ku dhiibay wuxuu ku leeyahay saas iska ilaali ruulkaas daa gaftid fayqadaada weynaysaa kaas daa gaftid taas weynaysaa taa daa weysid lacagta ka dhinmayso waxaas lagu siinaya ilaahay wuxuu leeyahay awal mudad ka noo yeeray ambiyadu dadka ilaahay ugu yeeray waxay leeyahay faqultu astaghfiru rabbakum war ilaahay u dambi dhaaf fursad innahu kaana ghaffara alla dambi dhaaf badan way يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إلى حلوة أنا إصور رمية ذنبنا هكعب سنين أنا إذين ذنب الآفاي أنا قبل ذنب الآفاي اللي هذا أنا ربك أهل صفتي سوين وصفة ذنب الآف ماذا كان إلهي هدول لكن يهي أو إلهي هدول لكن يهي كوا قال ذا مرك أي سيت لوسة تدري oo ay gafkoodu bato oo ay adduunyada ka badiyaan dambi ayaa ilaahay markaas uu sheegaa inuu raggaas uu ilaahay muraaqabeynayay uuna u dhakanayay uuna ilaahay cadaabayo laakiin addoomihiisa ilaahay wuxuu u yahay ghafuurur rahiim marka hadduu ilaahay dhakanayo waxaa mitaal ku soo qaadnay naag baa jirta jirkeeday gadi jirtay shaqadeedu waa saas hadduu ilaahay u dhakanyahay naagtaas ما إلهي وحو قبتو وين لها هبين إيمان شغل كلام هيسب إلهي وحو يري وحما سميسي وح خيرا هابا لي مالين بي أي بيسيس إلهي وحو يري جنة ذكيلية ودن بداف إلهي مركوا ربي نور راذين يو ميلان كبحنو ما أها ربي نور راذين ميلان نقو قبتو أنا مذنبين بامن هاي بأصلا أفر لا تنكسع لكن إساقنا وغفور رحيم markuu adduunyada keenan wuxuu yiri war hadaa gaftaan ani ii soo laabta aniga idin joogo ha iga cabsanina isku kayso tuura hada huwa rabbana jalla jalaaluhu nin baa jiray isagana 100 qof buu dilay maalin buu 9 qof buu dilay nin culimo u tagay ragga u haysta ilaahay inuu dadka u dhakeeyo kaas yiri warniyo 9 dilay sayala 9 aha wareega tagur dambigaaga ugu soo dhicine waa ku boqolay nin kale caalim uu tagay caalim ah wuxuu yiraahdo 100 qof aan dilay maxaan sameeyaa ilaahay wuxuu yiri yaa ka celinay adii rabbigaaga adin dhaxay ordo magaaladan waa carab badan tahay isaga tag magaalo kale tag inaadan dambi badan gelina laga yaabaa ilaahay wuu ku dambi dhaafaa marka walaalayaal horta marka hore asxaabi أنا مدة بدن وحنا لقيس ولا دعسي هذا طيب علماء غالي جرت ده إلهي ما أنت غفور رحيم بدن كهش ورا إلهي شديد العقاب واي ورا إلهي شديد العقاب واي شديد العقاب واي لكن إلهي مركان ضدك ويرنا دعوة لي هذا مرك إلهي لو يراي رحمة صادتك لو يرا أم بيضون ساسي آيان نبي أو ضدك مركي جفان جفكو ذا بطلها ورني وإلهي كعب صدق وإلهي يدني عذاب دهم وجي نبي ضدك مركو ويراي إن ربي رحيم ودود إن ربي قريب مجيب صفاتك إله لو يرى صفاتك أسوأ قالوا يا ويلو حوري إله سبحانه وتعالى
صالح مركو كرر ما وحيري هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إسهلوا كذلك أبوري ودو بدأ برصد مدنبين أسكتهين إن ربي قريب ومدلو مجيب ودعوة أجيب شعيب وحليه إن ربي رحيم مد رحمة بدن ودود أو كالجعيل بدن إله كالجعيل كذا كنا ويروى هذا ما أنت مدحوينها دار ربنا إن أمانه مدحوينها أنت أصو حبسي سمي أنت أصو قفو حري أنت أصو قفو دلك وقرتو ديري وروح أسوأ لو بهاي وحس دولد لماذا كم صعنيس دان هدانا حبسي لسمين دولد مصعنيس هدانا ضدك لك حكمنا وحس عناي ماله لكن مدحوين عوكو أمانية وحسمها مدحوين عوكو أمانية أنت أصو قريو ضدك ودسي أنت أصو عيدي وأفي أنت أصو ما أركتي ما تقانا مشاريع وفلي أنت أصو إسكول كبحي أنت أصو أقومو أيو ما أركتي هذا هو الله جل جلاله ولله المثل الأعلى إله مثل ما أنت مركا أنا علماء دعودي دنبئنا سو قاعد هو عبسي جبي كذا يخوف إلهي دتكي يسجل لك اللي حكي لي إنه أقول لك هي استدرت إلهي هرتقلت أيام نلقى من سيبركو إن سؤالنا رحمة الله جلال الله كبرياء الله تقوى هذا مثلا مركي لقى ورا ماي وهذه كل إيري تقوى مركي لقى ورا ماي تقوى هذا في ريست جوجل قش التقوى محيته ويابسا واحد أديك حتى ما فكرت كان يري حتى ما فكر تقوى وشيء وإنات سيدا أساس وصعطة وإنا كان صح ولماذا تأويلات يكبحيان تفسيرات يكبحيان لكن إلهي التقوى وكور من قرآنك ولا قرآن كجور بالتقوى محيته من هم المتقين إلهي من قادنا ناتيس إلهي وحويري سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين إلهي وحاد ما أركتي ودكتان جنة إلهي ودياري ووين وجنة السماوات والأرض وحلو دياري كو ألك عبسدو المتقين كو ألك دور سانات هرت ألك عبسي ما هو دور سنان تقوى في اللغة العربية حالي هذا دور سنان واي إلى حوح ما هو لما عبسناي اتقوا ربكم اتقوا ربكم كدور سنان واي إله أيقول لك واحد إله كعبس إله كعبس في صومالي ويتهي لكن حتى مركي لي هذا خوف يعني يخافون ربهم إلهك خوف كان حاول خوف العظمة والإجلال ما خوف أو حوح أماه إجلال حكوا دليله ملائكة مركو إلهي وكور رماي وحوري ملائكة مركو إلهي نغور رماي ما بعصي إلهي بكم عاسيان لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وحي إلهي نكم عاسيان هدنا وحي لفرنا ويفوليان هدنا وحي يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون محيك عبسنا المرك أي يعظمونه ويجلونه ما أين إلهي إنه عذابه كما عبسنا أبصلا ما بدن بابان مرك خوف الله وحوي تعظيم الله وإجلاله تاسا وحي قلبك كسمين إنسا عبسي كدور ثانان عبسي ده اسمها عبسي ده مرك أنا جوه يسنو سيدي سومالي مرك ده ماشان عبسي واي تاس ما إلهي تاس وكلمة كوه سايا لي شيء مرده عبسي واي والله عبسي ما إلهي عبسي ما تاس دي اللي جوه ما إلهي وحوي تعظيم واي عبسيديس waa weynaan culimada markii ka wadaan cabsashada ilaahayna waa weynaantiisa iyo ijlaalkiisa waay bal ilaahay meesha loo cararayo meel ilaahay uu ku leeyahay fafiru ila allah ilaahay xagee loo cararaa qof laga cabsanay ma loo cararaa cabsida sida cabsidaan u haysano oo ah xuuxda ah maaha ilaahay laakiin cabsi tacdiima iyo ijlaala iyo takwiini ah taas way tala rabo inay qalbigeena timaado oo markay macsida ku hor timaado weynida ilaahay ku hor timaado مرك عبسيدان وحوا عبسي وتعظيم ما أها يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون أي يعظمونه ويجلونه مرك إلى هذا الكيس مغلان يفزع عن قلوبهم قلوب هذا تفزع زي ملائكة ما أها عبسي أو معذب إنه يهي أو قاهر يهي أو مبتلي إلهي يهي أنا وحوا زنا ما أنت إله مؤمن كإله إنه ما حق جرعي ما أنتودن ابتلاء وكجرا نولش زودن ما أها أنبيضنا أي كجرا نول أنبيض في نول كفي عندكم مجرين نولش وقف عن أنبياء كجرتي أيوب دور 10 سنة الامتحامي دور 10 سنة الامتحام سنة ما ندريمين إيمانكم مركو كوي ما هذا وحا اسبدل يا النظرة هذا اللي بلاها أصلا
macaan buu noqonayaa xabiibkaaga waxa kaaga yimid maba dareemaysid laakiin qofkaan ilaahay rumaysneen dhibkiisa wuxuu u arkayaa dhib uu arkaa ma aha dhib ilaahay fawran uu ka qaadaya sayidina ayuub ma dareemin 19 sano 18 sano la yiraahdaa maalin muuna ka shakwoon ilaahay sababta uu mashquulsanaa qalbigiisu ilaahay xubbigiisu ku mashquulsanaa maalinkii uu dareemay laakiin wuxuu yiri rabbi inni massani ad-durr anta arhamur rahimin ilaahu maanta waa dareemay dhibkii ay soo gaari adigan raxmaan raxiim ataa iga qaxtaa ma dhihin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durr mubasharatan wala qaada annaga wax yar aan soo aadayo ilaahay marka hore waxaan u haysanaa muadib oo dhib badan oo dadka ciqaabo oo shaqo kale aan haynin raxmadiisa iyo qafuurkiisa iyo noloma sheegin arrimaha ka yimaada inay wada macaan yihiin noloma sheegin ilaahay inuu markiiba ka qaadayo marka isaga u laabatid noloma sheegin oo waxa uu ku ikhtibaaraya ay tahay inaad soo noqotid bas aysan ahayn ku raaxaysanayo inuu ku cadaabo adiga maaha ilaahay jalla jalaaluhu